وكما مجاهد محمد كاهن أحمد برنامج كان أيان كفران قينتونا تاريخ ذي مجاهد محمد كاهن أحمد تاريخ دوا مودن وجرا مرقاتلي ninkan horta wuxuu ka dhashay family talo marka wallahi maxamed kaahin taariikhdiisa ma soo koobi karay kaliday waa nin ilaahay hibo u siiyay inuu dadkoo dhan yaqaano kaande waa raggii ugu horeeyay waaye markii aynu halgankaa sana bilownay labadii sarkaal ee ugu badsaday goobtii dagaalka waa isaga iyo mujaahidka layaa ibraahim cabdillaahi xuseen dhagaweyne maxamed kaahin waa halgankii oo nool baan odhan karaa wuxuu ka mid ahaa saraakiishii had iyo jeer arrimaha nabadda maxamed kaahin axmed 19 markii aynu goosannay waxaana isleeyahay runtii hadduusan maalintaa iman lahayn barigu isagoo intaasoo sano u halgamayay nin kasta oo hunguri siyaasiya lahaa waqtigiisa arrimaha dimuqraadiyadda xisbiga hadday noqotana maanta muddadu u soo safray iyo hadday siyaaratiga noqoto maanta hogaaminta xisbiga maxamed kaahin ayuu waxaan leeyahay ummadda waa next person madaxweynaha soo socda lagu kalsooyo ku kadaaman ciido dhulka gaaf wareego gaadho taagan baa tahay مجاهد محمد كاهن أحمد waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer Maxamed Kaahin Axmed kaalintiisii waxbarasho ee dhanka Quraanka wuxuu ku soo bartay magaalada Nasiye oo ku taala dhinaca hawdka Burco sidoo kale waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe wuxuu ku soo qaatay magaalada Beer oo dhanka bari ka xigta qiyaastii 30 kiiloomitir magaalada Burco mujaahid maxamed kaahin axmed waxa uu waxbarashadiisii sare ku qaatay dugsigii farsamada gacanta ee Technical Institute ee magaalada Burco intaa kadib maxamed kaahin axmed waxa uu ka mid noqday ciidankii xoogga dalka Soomaaliya 1970kii maxamed kaahin axmed waxa uu waxbarasho dhanka ciidamada ugu baxay dalkii la isku oran jiray midowgii Sofiyeeti ee Ruushka gaar ahaan kulliyaddii ciidamada oo ku taalay magaalada Odeysa oo waqtigaasi ka mid ahayd midowgii Sofiyeeti balse haatan ah magaalo ku taala Jamhuuriyadda Ukraine 1973kii mujaahid maxamed kaahin axmed dalka Soomaaliya ayaa uu dib ugu soo laabtay isagoo ah sarkaal ciidan maxamed kaahin axmed technicalka iskuulka Burco ayaanu ka wada baxnay 70kii ciidamadaanu wada galnay marka Ruushkana waanu wada tagnay kulliyadda Odeysa la yiraahdo ee militariga wada galnay 70kii waanu galnay waxaanu soo dhameynay 73kii sanadii 1977kii maxamed kaahin axmed waxa uu ka mid noqday saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya isagoo ka mid ahaa weliba saraakiishii ugu cadcaddaa dagaalkaasi mujaahidku waxa uu noqday taliyihii sahanka ee qaybta 26aad ee fadhigeedu ahaa gobollada waqooyi galbeed ee Somaliland isagoo darajadiisu ay ahayd gaashaanle sare maxamed kaahin axmed labadii bishii February 1982 ayuu tallaabay isagoo ahaa sarkaalkii saddexaad ee tallaaba kuwaasi oo ka dhiidiyay arxandaradii taliskii macangaga ahaa ee afweyne waxa kaliya oo ka hor tallaabay mujaahid aadan sheekh maxamed aadan shiine iyo mujaahid axmed daahir nuur axmed dhagax rabbi naxariistii janno ha ka waraabiye oo labadooduba ku geeriyooday halganka saddexdan sarkaal waxay budhig u noqdeen yagleelka garabkii militari ee ururkii jabhaddii SNM oo ay ka abaabuleen gudaha dalka Itoobiya halkaas oo isla garabkii siyaasiga ahaa ee SNM-na ay yimaadeen isla horaantii 82kii waddanka Itoobiya maxamed kaahin waa raggii ugu horeeyay waaye markii aynu halgankaa sana bilownay 40 nin buu ka mid ahaa askarta ka soo tallaabay nidaamkii siyaad bare isaga iyo axmed dhagax iyo aadan shiine iyo aadan Saleeman talowgoodaasina SNMta koritaankeedii iyo hanaqaadkeedii wax weyn buu ka taro
ka hor intii aanu tallaabin isla markaana uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii afweyne waxaa lagu sifeeyey nin naxariis badan bulshadii ku dhaqnayd dhulkii uu ka ahaa hoggaankii sahanka ee qaybta 26aad ay ku sifeeyeen nin tacaddi neceb oo aan oggolaan marnaba bulshada in hagardaamooyin siyaasadeed la gaadhsiiyo waxaana arrintaasi marag furcad ka bixiyey sheekhalbeledka boorama sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo aqoontiisii u lahaa wakhtiga iyo kulamo uu la qaatay sidan ku sifeeyey marka xaqiiqatan anigu waxaan ku aqaanay sargaal oo qiimo leh oo dadka tixgeliya oo nabadeeya oo nimankii madaxdii wakhtigaa joogay dadka shacbiga markay isku dhacaan wixii arrimo ee loola tago aad iyo aad uga furdaamiya iyo ahaa dhowr arrimood baan anigu aan ugu tagay wakhtiga uu sahanka ahaa aan ugu tagay ama dad la xidhay oo baadil gardarro lagu xidhay oo ciidamada militariga ay xidheen mid walba si wanaagsan ayuu naga yeelo oo Soomaalinimo ah wadaninimo ah iyo walaalnimo ah ayuu noola dhaqmay oo noogu sii daayay dad xataa culimo ah oo saraakiishana ka tirsanaa ee kutubahana akhrisanayay wakhtiga waxa jira aan uga fasax qaaday inay maxay hayday ciidankoodiina ahaadaan laakiin gobolkii ay doonayeen ay wax ku faa'iideynayeen ama faa'iideysanayeen ay dadka la joogaan marka waxaan ku aqaanin runtii aad u qiimo badan oo qiimo leh kadib markii uu dhammaaday dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa jiray jabhado loo yaqaanay Soomaali galbeed oo ka jiray dhulka Soomaalida ee Itoobiya jabhadahaasi waxay falan amni darro oo ka dhana bulshada ay u geysteen dadkii ku dhaqnaa dhulkaasi iyagoo markaasi gaadhsiiyey boob kufsi iyo hagardaamooyin aan loo dulqaadan karin si looga hortago falalka waxashnimada ee ay bilowday jabhaddii Soomaali galbeed waxay saraakiishii dowladdii afweyne ka soo jeeday gobollada waqooyi ay bilaabeen kulamo joogta oo lagaga arrisanayo iyagoo ku shiri jiray kuna kulmi jiray maqaamka Sheekh Madar ee magaalada Hargeysa waxaana ay guddoonsadeen samaynta jabhad lagu magac daray Afraad Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed waxa uu ahaa sarkaalkii doorka koowaad ku lahaa samaynta jabhadaasi maxamed kaahin markii uu ahaa sarkaalka sahanka qaybta 26aad markii dagaalada laga soo noqday dagaalkii 77kii ee Itoobiya waxa bilaabmay jabhado Soomaali galbeed iyo wax la oran jiray oo dadka dhibaatooyin badan ku hayay khaasatan dhinacan galbeedka ee Wajaale iyo deegaanada dabeedna saraakiil badan oo maxamed kaahin ka mid ahaa Adashiina ka mid ahaa Axmed Dagax ka mid ahaa maxaan ku aadan Saleymaan ka mid ahaa rag badan oo caynkaas ayaa waxay isugu yimin jireen halkan maqaamkan Sheekh Madar meesha lagu aasaasay SNM ee la isugu yimin jiray saraakiishii waqooyiga oo dhan isugu yimin jirtay halkaas ay ahayd marka waxay aasaaseen jabhadii la oran jiray Afraad oo hawsha ugu badan isagu uu qaatay hadday tahay dhinaca saadka hadday tahay dhinaca abaabulka hadday tahay dhinaca sahanka hadday tahay dhinaca hubaynta iyo rasaasta horraantii 80aadkii waxay ahayd xilligii ugu adkaa ee kala shakiga ciidanka iyo dawladdii afweyne uu aad u xoogaystay gaar ahaan saraakiishii waqooyiga oo dawladdii siyaad barre dareen xoog leh ka qabtay waxaanay bilowday dhaqdhaqaaqyo ay ku rabto dhammaanba saraakiishii waqooyiga sidii loogu beddeli lahaa koonfur taasi oo intii badnayd u hirgashay haddaba siday marxaladdaasi adag oo taagnayd ugu suurto gashay mujaahid maxamed kaahin axmed inuu ka mid noqdo dhowrkii sarkaal ee ugu horreeyey ee tallaaba qayb libaax ayuu ka qaatay halkankii gudaha kadibna waxaa dhacday in loo bedelo saraakiishii isaaq oo dhan loo bedelo xamarna loo bedelo isagu uu naga tababar badnaayo xamar uu ka soo fasax qaatay halkanuu yimi gaani oo ku maqan jabuuti ayuu tallaabay sidaasoo SNM ku noqday maxamed kaahin majabe waxa uu ka mid yahay lafdhabartii SNMta intii uu lafdhabarta u ahayd intaan la bixin iyo markii la baxayba intaan la bixin Hargeysa ama gobolkan waqooyiga oo ku yaala gobolka waqooyiga ee qaybta 26aad la oran jiray wuxuu ka mid ahaa saraakiishii taliska qaybta maruu sahanka haystay maruu operationka joogayba wuxuuna ahaa isku xirka saraakiisha markii raaqo bilaabmay ee dagaalkii laga soo noqday Ethiopia raggii ka bilaabay buu ka mid ahaa ee la soo yimaado
la tashado lasla arko. si kastoo ay u adkayd duruuftu isagoon qabin dhib ku gaar ah isaga balse ka mida saraakiishii loogu jeclaa uguna kartida badnaa haddana mujaahid maxamed kaahin axmed wuxuu goostay inuu tallaabo. ninka isagoo gaashaanle sare ah oo xafiis iyo gaadhi leh oo guri dawladeed ku jira 3 ama 4 caruura oo yaryar oo socodbarra wata oo leeyri ka dhaqaaq tallow dadka u samee tadxiya ama dadka adigu isu fidee oo Itoobiya gal darajada mustaqbalkaaga waxa gaba ka tag may u muuqanin ummadda in halganka markaa libi ka iman doonto sida uu yahayna waxa ugu may wada muuqan dabeetoo dhowrkaanin ayuu horta maxamed ka mid ahaa labada nin ee markaa soo raacay iyaguna go'aanka la qaatay Adashiine iyo Axmed Dagax oo aan maanta noolayn ayay ahaayeen. saddexdii sarkaal ee u horreeyey ee uu ka midka ahaa waxay u gogol xaadheen imaatinka garabkii siyaasiga ahaa ee SNM kaga dhawaaqay 6 bishii Abriil 1981 magaalada London kuwaasi oo muddo kooban ku soo gaaray waddanka Itoobiya. wuxuu ka mid ahaa shirkii ugu horreeyey ee lagu qabto waddanka Itoobiya raggii halkaa joogay ee qolmeedkii dibadda ka yimid ee SNMta ku dhawaaqay raggii soo dhaweeyey ee shirka ugu horreeyay galayna ka mid buu ahaa. askartii ugu soo horeysay ugu yimaadeen waxay ku yiraahdeen anagu waxaanu nahay niman SNM ah Soomaalidan maqal urur cusub oo lagu dhawaaqo SNM la SDF baa markaa dee iyagu ay gudaha ku ogaayeen habeeyeen kolkaa nimankaas aanu ka tirsanay SDF maniin sidaa darteed baa ay soo dhaafiyeen oo heerar dabeedna ilaa Addis Ababa markay yimaadeenna xafiiskii qaabilsanaa jabhada ay u sheegeen in ay ka tirsanyihiin SNM saraakiil dawaanay garanayeen afar nin oo dagaaladii caan ku ahaabay ahaayeen oo Itoobiyaanku garanayeen dabeed kolkaas waxaan doonaynaa in saraakiishayada siyaasiyiinta ee Ingiriiska jooga ay noo yimaadaan oo halka kanaan isugu nimaadno oo hawshii halkan ka bilowno sidaa markay ka dalbadeen Itoobiyaankina fiisooyinkii bay noo soo direen sidii baanu ku nimay. taariikhdu markay ahayd 5 bishii May sanadii 1983 waxaa magaalada Jigjiga ee waddanka Itoobiya lagu qabtay shirweynihii saddexaad ee SNM halkaasi oo lagu doortay hoggaankii saddexaad ee ururka waxaana gudoomiye loo doortay mujaahid cabdiqaadir Koosaar halka gudoomiye ku-xigeen loo doortay aadan sheekh maxamed aadan shiine xogayihii guud ee SNM ayaa isagana loo doortay mujaahid maxamed kaahin axmed. muddo yaro kooban kadib waxa uu mujaahid maxamed kaahin axmed hoggaamiyey ciidankii SNM ee ka dagaalamayay buuraha Murya. wuxuu ahaa taliyihii hoggaaminayey ciidankii xoreynta ee ururkii SNM ee 1984 galay buurahan bariga oo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa uguna adkaa uu ku dhex maray ciidankii cadowga iyo ciidankii uu hogaaminayay ururkii dhaqdhaqaaqa waddanka Soomaaliya SNM meesha la yiraahdo Miriye meel ceelka loo yaqaano Laasgaal in yar ka xigta dhinaca Berbera muddada dagaalka buuruhu socday ee 84 la soo galay dagaalka uu hogaaminayay wuxuu ahaa 1984 dagaalkii ciidankii xoreynta ururkii SNM uu ku soo galay dalka buuraleyda dalka Somaliland dagaalkii ugu guusha badnaa buu ahaa waxaan xasuusanahay 27 bishii 1984 ka dagaalka ka dhacay meesha la yiraahdo Miriye 7:45 daqiiqo ayuu ka bilowday halkaa waxa uu soo gabagaboobay 6 maqribnimo oo rubcula intaa wuxuu ahaa dagaal toos u socda. maxamed kaahin waxay ugu horreysay muuqiisa 83kii annagoo ku jira tababarka baabuley waxaa tilmaaman howlgalkii
wakhtigii buuraha la gelayay miriya ayuu galay oo 3 qaybood baanu ahaynoo qaybta bariga shishay maxamed kaahin baa ka haystay qaybtan dhexe ee buuraha Sheekh iyo Gacanlibahna waxaa watay Ibraahim Dhagaweyne galbeedkana waxaa watay Cabdullaahi Askar Barkhad Allah u naxariistay marka maxamed kaahin wax badan haddii abaabul tahay hadday tahay wacyigelin hadday tahay dhowr jeer baan anigu la dagaalgalay tan iyo xoreyntii dalkana waxa uu midig iyo bidixba ku hayay hogaaminta hadba halkii looga baahdo halgankii xoreynta dalka waxaa halkan kormeer ku yimi abaanduulaha ciidamada xoreynta dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed Mujaahid Maxamed Kaahin muddada aynu soo maraynana waqti walba heer uun baynu taagnay maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin aynu taaganahay heer aynu odhan karno dhulka in dagaalka aynu ka wadnay intiis badani waxa ay taagan tahay har meelo magaalooyinka weyn ah ama meel yaroo raacda ayuunbaa maanta intaa aynu taagno ku sii jirnay marka hawshaa hubinteedii iyo digaraynteedii ayaanu kulley annagu kii dawnay maxamed kaahin wuxuu ahaa oo kale oo markaa uu kaga duwanaa saraakiisha kale wuxuu ahaa nin dhaqankii iyo dadkii iyo degaankii aqoon badan u leh oo abaabul hadday noqoto iyo hadday iyaga laftooda hadday wax dhex maraan heshiisiintooda iyo isku xidhka ciidanka iyo degaanka ayuu qayb ka qaadan jiray marka waxaana u saamaxaysay aqoon badan oo xaggii dhaqankaana wuu lahaa muddadaa lagu jiray halganka maxamed kaahin axmed kolley waxaanu annagu wada gallay oo aanu isugu nimi howlgallo badan waxaan ka xusuusanahay 3 bishii afraad 1983 waxaan kaloo ka xasuusanahay 13 bishii lixaad 1983 waxaan kaloo ka xasuusanahay 15 bishii 12 1985 29 waxaan kaloo ka xasuusanahay 1985 meesha la yidhaahdo Duruqsi waxaan kaloo ka xasuusanahay 3 bishii saddexaad 1986 meesha la yidhaahdo Diinle oo ka dhacay dagaal la odhan karo wuxuu ahaa dagaalka ay Soomaalidu jiraan waxa la isla galay foorka ama gacanta la isla tagay waxa dagaalka uu hogaaminayay waxaan kale oo xasuusanahay 19 bishii 11 1990 horaantii 1991 markii gacanta si buuxda ay ugu dhigeen ciidamadii SNM dhulkii Somaliland waxa uu Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed horseed ka noqday dib u heshiisiintii iyo nabadeyntii beelaha Somaliland gaar ahaan kuwii ku dhaqnaa gobolada Sool Sanaag isagoo oo magaalada Oog kulankii ugu horeeyay kula yeeshay odayaal madax dhaqameed iyo saraakiil ka soo jeeday gobolka Sool halkaas oo Mujaahid Maxamed Kaahin ku soo afjaray xurguftii iyo colaadihii taliskii Maxamed Siyaad Barre dhex dhigay beelihii ku dhaqnaa gobolada waqooyi ee Somaliland waxa laga dagaalamayana ay ahayd cadaalad darro dalkii oo burburay oo dhaqaalihii uu baaba'ay nabadgelyadii ummadda oo maxaan ku dhahday aad iyo aad u xumaatay cadaalad darro iyo xuquuqdii bini'aadminimada oo dalka ka baaba'day arrinta ugu horreysay maanta horta alla waxa weeye nabad ku wada noolaashihii iyada dhexdeeda ahayd inuu soo noqdo in dib loo soo celiyo nabadgelyadii iyo dib u dhiskii iyo dhaqaalihii dalka sidii dib loogu dhisi lahaa 1991 isna markay dalka soo gashay wixii ka dambeeyay 2 week ayaanu waxaanu ku kulannay meesha la yiraahdo Oog anagoo saraakiil ka timid soonka la sacaanood iyo saraakiil SNM oo isaga iyo ninka la yiraahdo Xasan Keyd hogaaminay waqtigaan isbaranay wuxuu ahaa nin nabad caan ku ah oo ururiya dadka oo intii bariga raggii Somaliland isu keenay
ayuu ragga ugu mudanaha hadday nabad samayn tahay hadday isdhexgeli tahay hadday ixtiraam tahay waxaana isleeyahay runtii hadduusan maalintaa iman lahayn barigu wejiga uu maanta yahay wax ka duwan buu noqon door aad u wanaagsan buu ka soo qaatay arrimihii maxaa ahto raggii ugu horreeyey isaga iyo xasan kaydi ilaahu naxariistee yimi bay ahaayeen dhinaca kan ka yimi burco iyo galbeedka ka yimi markii la soo galay dalka u yimi oog iyo yeyle yagoori iyo dhulkaa ay ku kulkulmeen odayaashii bariga iyo jabadihii kale dhinaca bariga markaa ka jiray ay kulmeen markiiba isfahansiiyeen wixii dadka shaki iyo isdiidmo ku dhex jiray markiiba ka dhex saaray ayuu ka mid ahaa taariikhdu iyadaa istagi taariikhdu iyadaa istagi iyadaa istagi taariikhdu iyadaa istagi taariikhdu iyadaa istari iyadaa istari daruurtiya heegadiyo sidii dayaxaad yihiin daruurtiya heegadiyo sidii dayaxaad yihiin sidii dayaxaad shirweynihii ugu horreeyey ee somalilan lagaga dhawaaqay ayaa lagu qabtay magaala madaxda gobolka togdheer ee burco sannaddii 1991kii 18 mey waxaana lagu dhisay dawlad kumeel gaadh oo hoggaan looga dhigay esanam halkaasi oo allaha u naxariistay cabdiraxmaan axmed cali madaxweyne loogu doortay isagoo mujaahid maxamed kaahin axmedna uu dawladdaasi ka noqday wasiirka gaashaandhigga sidoo kale waxa uu horseed ka noqday shirarkii nabadaynta beelaha ee somalilan kuwaasoo qaarkood xurgufo ay soo kala dhex galeen awgeed ay sababeen dagaallo sokeeye markii shirarkii liibaan iyo tawfiiq ay soo dhammaadeen laguna soo xalliyey xurguftii beelaha qaarkooda soo dhex taallay waxaa la guddoonsaday in shir guud oo beelaha somalilan ay u dhan yihiin lagu qabto magaalada boorama shirweynihii beelaha somalilan ee magaalada boorama waxaa madaxweyne loogu doortay marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal tan iyo xilligaasi oo taariikhdu ahayd 1993 ilaa iyo 2018 wax xil ah kamuu qabanin dalka balse mar kasta haddana waxa uu horseed ka ahaa sidii ay somalilan cagaheeda isugu taagi lahayd wuxuu ka mid ahaa saraakiishii had iyo jeer arrimaha nabadda dhinaca wanaagsan iska taagayay waxaa jirta oo kale wakhtiyadii 97kii ilaa meelahaasi wakhtiyadii la dooranayey maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo daahir rayaale wakhtiyadii iyagana la dooranayey ama doorashaduba ay dhacday dadyawgii wuxuu ahaa runtii dadku shacbiga oo kolay dowladda iyo dadka inay iska hor keenaan damcaan had iyo jeer odhan jira war madaxda maalinba nin uunbaa madax noqonaya yaan madaxda dagaal lagala hor imanin had iyo jeer uu ku sumtanaan jira runtii nin nabadeed buu aniga iigu sumtanaa ninkaasi iigu sumtanaa intii xataa ka dambaysayna inta maxay arrimaha gudaha uu yahay waxaan u aqaanaa nin wanaagsan oo degan oo dadka ixtiraam u haya oo dadka maxay soo dhoweeya nabaddana aad iyo aad u ilaaliya dhinac kasta oo laga eegana wixii horumar somalilan ay soo gaadhay waxaan qabaa inuu ka qayb qaatay mar walba hadduu mucaarad ahaa iyo hadduu muxaafid ahaaba inuu ku jiray oo ka qayb qaatay ayaan aaminsanahay wuxuu door muhiima ka soo qaatay geedi socodkii nabadda hirgelintii dimuqraadiyadda iyo dhammaystirkii hannaanka asxaabta badan iyo helitaanka doorashooyin qof iyo coda oo haatan somalilan lagu majeerto heerka ay ka gaadhay dimuqraadiyadda isagoo ahaa mid ka mid a tiirdhexaadyada xisbiga kulmiye ilaa iyo haddana uu yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi rool muhiimuu ku lahaa kulmiye inuu noqdo axsaabta ugu xoogga weyne ugu mudan noqdo oo markii ururkii asadoo kale halgamayay mujaahidiin badan ku jireen mas-uuliyiintii faraha badneed ee dhistay xisbiga kulmiyu kow ka ahaa maxamed kaahin xaalado fara badan buu soo marayoo 8 sannadood mucaaradu xisbiga kulmiye soo marayay maxamed kaahin wuxuu ka mid ahaa raggii halboolayaasha iyo tiirarka iyo lafdhabarta u ahaa xisbigii kulmiye ee mucaaradadii 8 sannadood ee adag ku soo jiray kaalinta muuqatana ku lahaa
isagoo xisbi mucaarada ayaanu xisbil xaakimka uga faa'iido badnaa sometimes waxyaabo badan qaranimada ay aad u eegi jiray maxamed kaahin in badan baan la soo rafiiqay odayaasha ilaa macallimiintii siyaasaddu koow ka mid yahay maxamed kaahin gurgurshaannimada hayinnimada isku wadka odaynimada waxyaabadan muhiim u leeyahay ka jirta waqtiyadii adkaayo uduboo kale maxamed kaahin laakiin maxamed kaahin markasaba doorka wanaagsan oo shariif oo karaamada xisbiga eegayo oo qarannimada inay ka weyntii wax badan oo kale waxyaabaha lagu hirdamayo inuu aad u xeeriyo wixii qarannimada ka weyn inuu xeeriyo aad u ahaan jiray oo isku wadida isku jiidida inaan marka kulmiye xitaa meesha adag ka qabto inuu ragga sida ugu macquulsan oo odaynimada ku jirto uga hadlu ahaan jiray waxaanu wada bilownay xisbigii la oran jiray asad waanu ka wada mid ahaynoo wada gallay oo soo wada abaabulayo markii dambe aanu ku kala jabnay oo isaga iyo madaxweynaha iminka joogay Muuse Biixi Cabdina ay kulmiyo markaa Siraanya keenay oo cusub iyo xaggiisa u baydheen annaga intayadii kala nidhi war mala inagoo udub iyo xagga ayaa la qaatay waqtiga kulmiyo wali hadeerto ma fahansanin laakiin aakhirkii kulmiyo baa markii dambe la isugu soo biyay shubto la isugu soo wada noqday وحقرن هيشا بالقرط الوصرا برشوانا قدرسا مركا اي قياستيو قيمين تبوحيو قنقار برشدو تهي ليسو 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 قرقول ليسو قرقول maxamed kaahin axmed markii uu noqday wasiirkii amuuraha gudaha ee Soomaaliland 2018 waxa uu markiiba la kowsaday colaad muddo soo jiitamaysay oo u dhaxaysay laba arday oo walaala oo ku wada dhaqan degmada Ceelaf Weyn xukuumadda madaxweyne Biixi uu ka yahay wasiirka amuuraha gudaha waxa ay gelisay soo afjaridda hawshaasi dadaalkii ugu badnaa waxaana ay adeegsatay awooddii madax dhaqameedka waxgaradka cuqaasha culimaawdiinka iyo ciidamo muddo dheer gondaha la isu dhigtay kadib waxa idamka eebbe dartii hirgashay nabadii lagu taameeyey waxaana la soo afjaray colaaddii dhiigga badani uu ku daatay ee ku holcaysay deegaamo kala duwan oo ka tirsan degmada Ceelaf Weyn haddaan kelmad yar ka idhaahdo sababaha keenay hindisahan aanu iyagana kala tala gallay xukuumadda bacdamaa dhacdadani muddo 3 sannadood ay madaxa gelisay maadaama dhacdadii ugu dambeeyey tii 6aad ay noqonayso maadaama dad dhowr iyo 60 qof ay ku dhinteen maadaama dadkii 130 ahaa ee halkan ay culimadu hadda xaqooda ka sheegtay ay ku dhaawacmeen in maanta halkii inanta ka tiri halka laygu furayo fagidnaha jooge aan la odhanin cid baa maqnaa ee Somaliland halka ugu galbeedaysa halka ugu bariyaysa sheekheeda iyo shariifkeedaba ha laga keeno isla muddo kooban kadib waxa gobolka Sool ka dhacay nugaashiisa iyo hawdkiisaba colaado kala duwan oo dhiig badan sababay kuwaasoo mar kale keenay inuu kabaha u geejisto muddo bil ahna uu ku gaadiidsado kuna gabaldhacsado darmadana dhigto duleedada deegaanadii colaadu ka dhisaalayd maadaama uu yahay mas'uulkii dhanka amniga u sareeyay Somaliland tacab badan kadib waxay ku guuleysteen isaga iyo ergadii uu horseedka ka ahaa ay isugu jiray madax dhaqameedka iyo waxgaradku sidii ay colaadaasi u dami lahayd islaamnimaduna arkaan bay leedahay sidii hadda sheekhu uu sheegay islaam baan iska ahay masaajidkana waan galaa wax fara badan baa maxaan ku dhahdayay u dhaxeeya إن صلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه إسلام لماذا لقى بقايا أو قردي أنت محن كل هذا قبسون ودل يسوق تجايو نبضوا ويدعي الهدوان اللي تجي لهم marka ninka ilaa maanta maalinta ilaa maanta ku taagna de taariikh laga sheekeeyaba maxay haydayaan uma baahna waayo isagii baa taariikh socota qofkiibaaba taariikh socota ilaa maantana ku shaqaynaya ilaa maantana ku taagan si uu nabadgeliyadaada iyo wanaagaaga iyo dalnimadaada iyo xurriyadaada wixii aad shalay weeday inuu ku sugo oo ku
wasiir arrimo gudeed maxay ahayd qarankan ka ah. colaaddii u dambaysay ee deegaanka sool waxaa la soo afjaray 26 January 2022 taasi oo nuxurka qodobadii lagu heshiiyey uu kaga dhawaaqay degmada Yagoori. markaan eegnay in sideedaba tiirdhaxaadka wada noolaanshaha bini'aadamka inuu saldhig iyo aasaas u yahay inay si nabadgelyo ah u wada nool yihiin gaar ahaan dadka mandaqadda isku degaanka ah ku wada nool ee ay ka wada dhaxayso nolol maalmeedka daaqa biyaha magaalada iskuullada iyo guud ahaan adeega aasaasiga ah ee bulshada. bal waxay tahay ilaa imise bilood ayuu halka banaanka uu fadhiyey nabadayn beelo waalaa dhexdooda aan ka iman tii ku jiro oo gabagaba ah hadda dagaalka agteeda ka bilaabantay oo ah reer dhawaaleedkiiyo reer puntland ka burlaaqay xagga nabadda iyo waddankii deganaansha ummadda waa nin saa uga shaqeeya daliilka qura tusi karaa SNM ka dana asaas u ahaa meel wax ka dhaca asaas u dhex fili jiray maantaba waxyaabo ku hawlin wad arkaysaa muddo 2 bilood wuxuu ku mashquulsan yahay waa nabadeynta gobolada bariga oo duruufoodii xaaladaha ka jira oo aan gobolada galbeedka aan la wadaagin meel wanaagsan buu marinaya arrimo nabadeyn oo fiican buu ku dhex jiraa waqtigiisa hore qarfi halkan kamid la mid uu maanta isagoo tuulooyin u seexdaa u jooga muddo 2 bilood reerkiisa iyo gurigiisiba uu hawlo qaran u guranayo iyo wajibaadkiisa odaynimo waa taa ugu sabray inuu nabadeyntii beelaha bariga xulgufo badan oo jiray. mujaahid maxamed kaahin axmed maxaa lagu sifeeyaa shakhsiyadiisa hogaamineed? ninkan horta wuxuu ka dhashay family talo familiyadii talada la weydiin jiray ee uu ka mid ahaa familigoodu xaaji kaahin allah yarxamu iyo walaalihii familiyaasha talada la weydiiyo aaggaas tog dheer ayay ka mid ahaayeen. waa nin ku dhashay reer talo horta isagoo yar buu hana qaaday ninkanu isagoo yar buu horta taliye ahaaba in waayaha iyo waqtiga Somaliland wax weyn ku soo taray wax weyn ka soo qabtay buu ah waxyaalaha caanka ku yahay waxa weeye waxtarka iyo isdhexgalka bulshada. maanta maxamed kahwani kaliya nin walba meel ku og ama habbuka ama caafimaad qabo waqtiga tagta xafiiskiisa aad ka helayso marka wallahi maxamed kaahin taariikhdiisa ma soo koobi karay kaliya. maxamed kaahin axmed 19 markii aynu goosanay dowladdii cabdiraxmaan tuur soo dhisay buu ka mid ahaa wasiir gaashaandhiga laga soo dhigay marka raggii wax ka qabtay ee nabadda soo celiyey ee qoryaha xiriyey ayuu maxamed ka mid ahaa. waa nin ilaahay hibo u siiyey inuu dadkoo dhan yaqaano oo cid walba taariikhdiisa iyo ku ahaa iyo reerkiisa iyo wuxuu ahaa wuxuu ka soo jeediyay fahmi kara aad u yaqaana marka qayb weyn ka soo qaata qayb weyn. maxamed wuxuu ahaa nin ka galbeedka jooga ee ka bariga jooga ee ka bartamaha jooga isku mid u arka isku mid u dhaqma. dhalinyarada joogsiga noo soo joogsan jiray oo si kalsooni loo kala aan dhalinyaro ku arkay inaad odayaal qaabilayso inta noo qaabilaabo duruuf badan la wadaagi jiray oo xaalado badan oo noo tagnay xitaa taladeeda si fiican uga bixiyo inta baad baan u hayaa inuu ogsoonahay in wax badan ku dayasho mudan uu ku leeyahay shakhsiyadiisa iyo taariikhda qarankaba. maxamed kaahin waxa weeyaan de taariikhdiisu wax minitiya laba laga sheekayn kara maaha laakiin waa qof mudnaanta ubadkiisa iyo reerkiisa iyo dadkiisa ka hormasiyay qarannimada Soomaaliland. runtii waa nin dulqaad badan aadna ugu wacan hogaaminta iyo go'aan qaadashada habboon leh waa mas'uul aad ugu wanaagsan hogaaminta kuna habboon go'aan qaadashada xilliyada adag. ma run baa inuu yahay nin aan adduunyo jeclayn gacan furan oo bulshada ku xidhan?
maxamed waxa weye dadka kale aan hunguriga lahayn adduunka adduun urursa iyo adduun yaale iyo dad kale aan isku mashquulinin wixii beriga dalka la soo galay guryo iyo wax la booboobiye iyo maxamedka labadoodii maqsina barco ku jiray aan ugu tegi jiray labadoodii maqsina barco ay ku lahaayeen marka waa xagga iimaankiisuna buuxa weeyaan oo aan nin hunguri iyo damac iyo haboob iyo doono iyo aanay ku jirin weeyaan ayaan u aqaanay wuxuu imika la soo baxay maahan wax awal ba ahaaba ahayd isagoo intaasoo sano u halgamayay inaanu xataa dukaan yar hargeysa ku lahayn marka waxay muujinaysaa qiimaha uu qofka muwaadinka dhabta ahi maxamed horta waa nin dulqaad badan xilmi leh sabra dhib walbana xalkeeda waqti ka saa qaatee jimbaha u dhiga waa nin gacan furan sikhi ah dadka jeebkiisa u kala furta dadku ma yaqaanaane waa nin nabad midigta u sida haddii cadow jirana labada gacmood isku geeya nabadda ku dambaysay weya horta maxamed waa nin lagu yaqaano in aanu liisan ama ku tagri falin ama meelaysan hantida ummaddu leedahay waa arrin lagu yaqaano oo muddadii halgan ku socday ama intii aynu jamhuuriyadda somalilan jirtayba ay cid waliba marag uga tahay maxaa uu mudan yahay mujaahid maxamed kaahin axmed waa maanta wuxuu mudan yahay maxamed kaahin in wixii uu shalay idiin galay idina aad maanta u gashaan unbuu mudan yahay arrimaha dimuqraadiyadda xisbiga hadday noqotana maanta muddadu u soo sabray iyo hadday siyaaratiga noqoto maanta hogaaminta xisbiga cid ka mudan maxamed kaahin axmed waxaan aaminsanahay cid ka mudan aan jirin baan aaminsanahay waxaa nimanka la tijaabinaya dee maaha dadka qaarna waa ka baxo waa la soo tijaabiyey qaarna imankay tijaabo ku jiraan maxamed kaahin nimanka tijaabo uma baahne imtixaankiisu wuu gudbay mar hore raggii hunguriga lahaa siyaasadda ha ka yaraadaan ama ha ka weynaadaane nin walba tuurtiisa ayuu ku qaaday wuu soo guray hadday tahay siiraanyo hadday tahay saleebaan hadday rag ka yaryar tahay dhammaan nin kasta oo hunguri siyaasiya lahaa wakhtigiisa wuu siiyey waxaan leeyahay maxamed wuu istaahilaa in markiisa la guro oo wakhti la siiyo oo wakhtigiisa la siiyo anigu ila kaahin bartay nin lala tartamayay muu ahayn ama nin laysdhinac taagayay muu ahayn in magaciisa la harsanayo ah laakiin de wakhtiyadan dambe markii wakhtigu dheeraaday waa laga yaabaa in magacyo kale ay soo baxbaxaan maxamed kaahin anigu waxaan leeyahay ummadda waa next person madaxweynaha soo socdaa anigu isaa ka dhigi lahaa way dadku se u dhadhamiyaan garan maayo maanta way arkayaan se u dhadhamiyaan Addugi waa inay waqtiga ma hadin iyo